Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada dhalinyaro. Haddii aad nala joogto waa mahadsantahay. Haddaan nagu cusub tahay nagu soo bir qayb subscribe-ka noo taabo like dheh si dhalinyaro badan uu u gaaro. Waxaan rabaa maanta in aan codsi arday badan iga soo codsato aan fuliyo oo ku saabsan gold breakdown. Waxaan rabaa 1 month inaan kasoo bilaabo breakdown ilaa iyo low time frame aan isla fiirin qaabka analyze-ka la isku qabadsiiyo. Waxaa aragtaan suuqi inuu ranging ku jiray ugu dambeyntan rangiga uu ka dhex baxay Soomaan. Marka meeshan maxaa inooga muuqdo bartaan haddaa aragtid waxaa inoo yaalo fair value gap. Okay, fair value gap kan noo calaamay waa monthly fair value gap. Ila soco monthly fair value gap. Sidoo kale bartaan candle-kan iyo candle-kan maxaa kaaga muuqdo meeshan waxaa iiga muuqdo monthly external range low iyo range high ayaa iiga muuqdo. Sidee ku ogaanaynaa? Waxaa arkaysaa bartaan last previous month in la qaaday highgeeda. Marka kan muxuu noqonayaa all time high waa la qaaday kana isaga ah. Okay, kana wuxuu inoo noqonayaa all time high ayuu inoo noqonayaa. Okay, isagana inoo calaamay si hadhow markaan u degano low time frame ka aan aragno. Kan sababtu maxay tahay aan u calaamaysanay kanna sidoo kale waa ku tusi doonaa. Kanna wuxuu ku noqon doonaa I think kana wuxuu ku noqonayaa monthly internal range low target ka meesha loo soo socdo ayuu inoo noqonayaa. Kana marka waxaan ka dhiganaynaa drawn of liquidity then meeshan maxaa waay sababta aan u calaamaystay meeshan maxay tahay kan haddaan ku tuso inta ii dhig all time high inoo ahaa Soomaan. Kanna muxuu inoo ahaa targetka meesha uu yahay waa drawn of liquidity. kan marka haddii aan kuu micnay micnihiisa sababta aan u samaynayo maxay tahay waa monthly maxaan dhahnay waa monthly external range high oo maxaa lagu sameeyey taking waa la qaaday Soomaan. dan kan muxuu inoo noqonayaa wax loo yaqaano all time high saas maskaxda ugu hay. Sidoo kale sorry inta haddana calaamayso kan muxuu inoo noqonayaa marka isagana wuxuu noqonayaa monthly internal range low oo wuxuu noqonayaa targetkeenu noqonayaa Soomaan. target intee la soo target garaynaya marka monthly magnet fair value gap ku jira Soomaan meesha kana waxaa la monthly magnet fair value gap. Marka inta waxaa inoogu qortaa monthly magnet fair value gap. waxaan u malaynayaa marka conceptiga hadda inaa ilahayso maadaama external range high-gan la qaaday kadib maxaa la rabaa in lagu soo laabto internal range low targetka monthly-gan inuu noqdo kadib maxaa ka hooseeya fair value gap ka sii hooseeya soo maahan. in adu waxaa la rabaa marka analyze samaynaysid inaad isqabadsiin karto aad fahmi karto waxaad analyze garaynayso. waxaan usoo degan doonaa weekly aa imaan doonaa. marka weeklyga joogtid waxaa lagaaga baahan yahay weeklyga inaa analyze ka samaysid oo focus aad saartid kadib maxaa ogaanaysaa dailyga jihada uu qabo. Sidoo kale weeklyga waxaa ogaanaysaa inuu monthlyga la qabo iyo in kale ayaad ogaanaysaa. simple meeshan maxaa inooga muuqdo external range high waa la qaaday kadibna range draw of liquidity gana target soo inta loo soo socdaa soo maahan. marka weeklyga muxuu na tusayaa weekly showing same as monthly. dailyga haddaan imaano focuska intaan gelinaynaa marka focuska meesha la gelinayo ayaa la iskaga baahan yahay. sidoo kale waxaa la rabaa analyze inaad samaysid oo fahantid meesha la joogo wax la sameynayo kadib hadhow waxaa kuu fududaanayso in aad conceptiga saxda ah aad qaadatid. meeshan maxaa waay waa meeshii monthlyga aan kasoo calaamaysanay waa ilahaysaa kanna waa drawn of liquidity aan soo calaamaysanay. xirifka si fiican noogu saar. okay, drawn of liquidity all the time high labadaba waa haynaa Soomaan. marka waxaa analyze haddana kula dhaqaaqaysaa exactly boxkan dhexdiisa adoon wax kala samaynin kadib waxaa inoo soo baxayo wixii markaas anaga aan raadinayno ayaad ogaanaysaa. okay, meeshan maxaa nooga muuqdo boxkan last move-kan intuusan kicin buyga horta meeshan fiiri buygan inta ka kacay meeqa buy kacay candle-kan weyn meeshuu ka bilowday structure-ka la jabiyey kan waay Soomaan. candle-kan fiiri baadiga xowliga ku kacay candle-ka ugu dambeeyay ayaa waxaa la lahaa OB daily order block kaasa inoo ah
inoo calaamay kan muxuu inoo noqonayaa daily ob daily ob kalarka yellow nooga dhig okay kan muxuu inoo yahay daily ob meeshaan sidoo kale maxaa ka aragtaa fiiri market structure shift bartaan fiiri wuxuu kuu noqonayaa market structure shift hoos soo dhigo center down hambato market structure shift okay break of structure ma aragtaa ha waa kana this is your break of structure kan muxuu kuu noqonayaa bos toobka dhigaysagana lafaha ka gal markaa daily imaadid waxaa la rabaa lafaha inaad ka gashid aa ogaatid meesha saxda ah ee la socdo okay waxaan kaloo fiirinaynaa meeshaan maxaa kaaga muuqda balance press range soomaan fiiri balance press range allah isagana calaamayso bartaan inta kasoo bilow ilaa iyo inta isku soo qabo kalarka noogu bedel sidoo kale inversion fair value gap waa dhihi kartaa sanada scenario laakiin waxaan dhahaynaa balance press range okay aye maxaa kaloo aragtaa daily fair value gap ma aragtaa haa waa kana barta daily fair value gap kana isaga waxba ha ka tegin kulli calaamayso daily fair value gap hadhow marka waxaa kuu fududaanayso inaad conceptiga kor ka haysid aad la socotid bishaan waxa suuqa uu sameynayo daily fair value gapka waa kana lacagtan sababta hadda fiiri marka bartaan meeshaan maxaa kaloo kaaga muuqdo fair value gap kale oo la jooga hadda soo ma ahan automatically intan fiiri another fair value gap calaamayso marka waxaa calaamaysaa kan markii aa imaadid maadaama ay daadato lacagta meeshaas ay ka daadato 50%ga ma la imaada haa waa aragtaa soo maahan midnight mid pointiga aan dhehe markii la imaado aa laga soo daatay kan maxaa waay marka midka hadda laga trade gareeya waay daily fair value gap daily fair value gap iyo OB-ga inuu u dhexeeyo maxaan dhihi karnaa marka future-ka calaamadaha laga filayo maxay tahay muxuuna tusi doonaa marka labay noqonaya marka slow down inuu iska noqdo ama sideways movement inuu sameeyo calaashaan meeshaan uu range uu ku dhex galo marka overall structure bearish waay overall structure-ka bearish waay intee lagu soo wajahan yahay drone of liquidity-gaana lagu soo wajahan yahay marka structure-ka guud waa sell laakiin ilaa inta laga imaanayo jihada inaad qaabkaas ula socotid waay marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad isha ku haysid uusan waxba kaa fakanin jaartiyadan iyagoo dhammaystiran oo faahfaahintooda ku qoran waxaan soo dhigay monthly biaskeena ee groupka discordka meesha kala socon kartaa meeshaan soo gelinaynaa biaska wixii noocaase qaybta descriptionka idin soo dhigi doonaa meesha kusoo biira insha allah